بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منهم. marka hore rabbi jalla wacala ayaa mahad iska leh oo halkaan ugu kulmiyey maanta ay bishu ramadaan ay tahay maalintii saddexaad. ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa waxaan ku bilaabi doonaa insha allah halkaan kitaabka alkalimu طayib ee uu qoray uu leeyahay alimaam sheekh alislaam ibnu taymiyata raximahu llahu tacaala. kitaabka inteena bilaabin ka hor muqadimo yar oo kooban. kitaabka horta wuxuu ka hadlayaa waxaa weeyaan xuska ilaahay jalla wacala iyo baryada ilaahay subxaanahu watacaala. kitaabka waxaan ku dooranay laba arrimood. midda koowaad, ilaahay xuskiisu daa'iman wa abadan waqti ma lahan oo mar walba in ilaahay la xusaa, gaar ahaan bisha lagu jiro aawadeed oo ah bishii ramadaan. asbaabta koowaad waa taas oo qofka inuu daa'iman wa abadan ilaahay xusuuso laga rabo. haddana bishaan markay tahayna waxaa weeyaan oo ahmiyad gaar bay leedahay adkaarta iyo baryada ilaahay subxaanahu watacaala. sababta labaad waxaa weeyaan markuu dhib dhaco, dhibku meelaha looga badbaado waxaa ka mid a ilaahay subxaanahu watacaala dib loogu noqdo. dhibaato kasta iyo problem kastoo dhaco ilaahay xaggiisa ayaa wanaagsan qofka inuu noqdo, liannahu arrimuhu dhanna ilaah bay u noqonayaan subxaanahu watacaala. ilayhi yurjacu alamru kulluh. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa wax walba xaggiisa u noqonayaan. sidaa daraaddeed labadaas arrimood iyadoo ay sabab u yihiin inaan kitaabkan oo ka hadlayo adkaarta nabiga sala allahu alayh wasalam iyo adiciyadii soo arooray, sababta dikrigan aan u dooranay kitaabkan waxaa weeyaan in diinta oo dhanba ama cibaadaadka dhanba waxaa loo jideeyey waxaa weeyaan ilaahay xuskiisa awadii. tusaale ahaan markaa fiirisid tawxiidka laftigii waa dikri ilaahi subxaanahu watacaala, laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah. salaada markaa eegtid ilahi wuxuu leeyay aqimi asalaata lidikri. oo sidoo kale weeyaano xajka markaa eegtid, soonka markaa eegtid, cibaadaadka dhan markaa eegtid waxaa loo baneeyey ama loo jideeyey dhammaan waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala xuskiisa. sidaa daraaddeed walaalaha muslimiinta dhammaan waa inaan wada ogaano qalbigu waxyaabaha mirirka ama daxalka ka qaadi karaa waa ilaahay jalla wacalaa dikrigiisa. dikrigana ahmiyad gaara ayuu u lahaa nebigii asxaabtiisa. nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu dikriga bari jiray xataa asxaabtiisa si ay u akristaan xilliga ay muqiimka yihiin iyo xilliga ay musaafiriinta yihiin, xilliga caafimaadka qabaan iyo xilliga ay xanuunsan yihiinba. sidaa daraaddeed xaaladooda dhan ilaahay jalla wacala ayay xusi jireen. ogaada rabbi jalla wacala waa alla weyn subxaanahu watacaala, weyneeyana ciddi weyneysa. ilaahay wuxuu leeyahy fadkuruunii adkurkum, ixusa anna waa idin xusaya. inkastoo noo imaan doonto aayaddaasi iyo macaanideeda cashirka soo socda noogu imaan doono. sidaasoo kale thaabit ibnu salim albunani wuxuu dhihi jiray waxaan garanayaa ilaahay jalla wacalaa marka uu ixusayo. dad badan baa arrinkaas markay maqleen ka argagaxay oo baqday oo ka cabsaday. ay yidhaahdeen sidee ku garanaysaa rabbi jalla wacala inuu ku xusayo, see ku ogaatay? markaasu wuxuu usoo deliishaday aayaddan fadkuruunii adkurkum. sidaa daraaddeed walaalaha muslimiinta dhammaan anuu nafteeda ka bilaabayo, ilaahay xuskiisu waa inaan badinaa. aayadaha tilmaamaya in la badiyo xuska ilaahina aad bay u tiro badan yihiin, sida ilaahay jalla wacalaa wاdhaakiriina allaha kahiira wاdhaakiraat acadda allahu lahum makfirata waajran cadiima. ilaahay wuxuu sheegay ragga iyo dumarka alla xuskooda badiya inay leeyihiin dembi dhaaf iyo ajar aada u weyn oo aan dhammaanayn insha allah. aayadaha ku yimidna in ilaahay in badan la xusaahi aada iyo aad bay u tiro badan, ilaa 10 aayadood ayaa ku soo arooray
ilaahay jala wacalaa xuskiisa in la badiyo. dadka lagu tilmaamo ulul albaabka ama caqliga u saaxiibka ah, ilaah wuxuu ku sheegay tilmaamahooda qoladaasi waxaa weeyaan aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuuda wa calaa junuubihim. qolo xaalad walba ay ku jiraan alla xuso, hadday taagan yihiin iyo haddii ay fadhiyaan iyo haddii ay dhinac u jiifaan, intaba alla subxaanahu wa tacaala ayay xusayaan. dikriga ilaahay qofkii badiyaa waa liibaanaya. ilahay wuxuu leeyahy jala wacalaa wadkuru llaha kahiira lacalakum tuflixuun. sidaa daraaddeed waxaan muhiimadda tahay inaan isweydiino dikriga ilaahay aan rabno inaan bilaabno kitaabka ka hadlayo sidee buu noqon karaa. dikriga waxaa laydinka rabaa waa inuu noqdo nafteeda idinkaba inaan qalbiga ilaahay ka xusno, carabka inaan ilaahay ka xusno, jawaarixdeennana inay ilaahay xusaan. qalbigu wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu xusayaa inuu nicmada iyo barwaaqada uu ku dhex jiro, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka yimid, inuu qalbiga uu aamino ee uu arrinkaas caqiide ka dhigta weeyaan. amaa carabku waa inuu ku dhawaaqo weeyaan xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala, adkaaraha soo arooray ee nabigeena sala allahu calayhi wasalam ka soo arooray, cibaadaadka dhan oo jawaarixdeena aan ku samaynayna dhammaan iyagan waxaa weeyaan waa xus ilaahay subxaanahu wa tacaala aan xuseeno. sidaa daraaddeed majaalisu dikri culimmadii hore salafka hore waxay ku tilmaameen in meelaha lagu barto dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa hadday ahaan laheyd qur-aanka, axaadiista ama culumta diinta dhan, sida ibnu xajar uu leeyahay majaalisu dikri majaalisu saa'iri aacaat. majaalisu dikri waxaa weeyaan meelaha ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa ama aacaadkiisa lagu sheego ama lagu qabto weeyaan. alimaamu alqurtubi sida kitaabkiisa almufhim uu ku sheegayo waxa uu leeyahay majlisu dikri waxaa weeyaan majlisu cilmin wa tadkiir. sidoo kale ibnu rajabna waxa uu tilmaamay dikriga mutlaqa inuu soo gelayo salaada, qur-aan akhriska, soonka, qur-aanka barashadiisa ama qofka inuu wax baro ama la baro, iyo cilmiga naafica ay tasbiixda, takbiirta, tahliilka iyo kuwa kale. qaabka ugu fiican alla loo xuso waxaa weeyaan qofka inuu aad iyo aad ugu dadaalo markuu alla xusayo qaabka ugu fiican, hadday tahay xagga tahaarada inuu ku dadaalo best midda ugu fiican ugu wanaagsan inuu ku dadaalo. meelaha ilaah uu ku xuso inay noqoto meel u qalanto inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xuso, showshare iyo mushkilad iyo buuqna aan ka jirin, wuxuu akrinayo qalbigiisa iyo afkiisa iyo carabkiisana inay israacsan yihiin waa muhiim jiddan. xaalado waxay sheegaan culimadeena raximahum ullahu jamiican in qofka uu iska daayo alla xuskiisa. xaaladahaas waxaa ka mid a marka uu qofka uu gudanayo arrintiisa ama xaajadiisa, sida suuliga hadduu ku jiro, labada qof ee isqaba markay nolosha wadaagayaan. waxay kaloo ku daraan culimmada qaarkood khudbada markay socoto, walow khudbada markay socoto uusan isaga waxba sheegeen qofka fadhiyaahay ee dhegeysanayo, laakiin dikri ayuu ku jiraa laftigiisa. iyo xaalado kale oo aada u tiro badan ay ka mid tahay markuu qofka nucaas uu dareemay wax la midka ah. dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala daa'iman wa abadan waa inuu carabkeena ka qoynaado. midaasaan ah midda ugu muhiimsan adduuniya aakharana lagu liibaanayo. kitaabkan intaynan sheegin ka hor kutubta la midka ah ee hore loo qoray ama sheikhul islaam kadib kitaabadii la qoray, kitaabkan kadib waxaa habboon inaan waxyar ka tilmaano kitaabkan kitaabadii ka horeeyey ee isaga la midka ah. kitaabo badan ayaa kitaabkan kuwa la mid ah qarnigii 2 mise 3 hijiradii ayay culimo badan wax ka qoreen, gaar ahaan muxadisiintii iyo xufaadii dadkii hore ah. waana badan yihiin dadka ka qoray. waxaana ka mid ah tusaale ahaan dadka kitaabkan adkaarta wax ka qoray dadkii hore iyagoo aada u tiro badan. waxaa ka mid ah tusaale ahaan haddaan soo qaadano 3 magac ayay wadaagaan. inta badan qaar waxay magaca ay kaga dhigeen adducaa, qaarna addikr, qaarna waxay ka dhigeen camal yowm waleyla. dadkii ugu horeeyey ee noocan kitaabada ah alif waxaa ka mid ah abu yuusuf yacquub ibn ibrahim al-ansari oo loo yaqaano saaxib abu xaniifa oo dhintay sanadka markuu 182. dadka alife isagana waxaa ka mid ah kitaabka abu daawuud oo taqaanin saaxib sunan, sulaymaan ibn al-ashcath al-asadi asajistani oo isagana dhintay sanadka markuu 285. dadkii kitaabadan alifay waxaa ka mid ah ibn abi dunya oo isaga kitaabkiisa adducaa. kitaabka adducaa magacaasoo kale waxaa kaloo alifay
ibn abi caasim. dadka kitaabada alifa camal alyowm walleyla waxaa ka mid ah ninka lagu magacaabo abulxasan, waxaan ka wada abu cali xasan ibn cali almacmari. waxaa ka mid a dadka alifay kitaabka camal yowm walleyla alimaam annasa-i oo magaciisa la yihahdo abu cabdiraxmaan axmed ibn shucayb ibn cali ibn dinaar annasa-i. dadka alifay kitaabka adducaa waxaa ka mid ah oo culimmada hore ka mid ah waxaa la yihahda ducaa anwaac listicaadaat min saa'ir alaafaati walcaahaat, ninka la yihahdo abuxasan axmed ibn jacfar ibn maxamed. dadka kitaabadaasi iyo kuwo kale alif aad bay u tiro badan yihiin. imaamu طبراني wuxuu alifay kitaab majalad kabiir ah oo la yihahdo adducaa. waxaa ka mid ah ibn sunni, isaga laftiis wuxuu alifay kitaabka camal yowm walleyla. waxaa kaloo isagana alifay khataab oo alkhataabi waa taqaanin albusti oo dhintay sanadka marka waa 388 hijrada, kitaabkiisa shan ducaa. dadka kitaabada alifa aad bay u tiro badan yihiin. waxaa ka mid ah abu nucaym alasfahani oo alifay kitaabka camal yowm walleyla. dad badan aada u tiro badan. shawkani laftigiisa kitaab buu alifay oo dadka alifay isagana waxaa ka mid ah alimaam almaqdasi cabdilghani, iro kale aada u tiro badan ilaa laga soo gaaro ka hor sheekh tacaala alkalim ayib. dadka kitaabka alifay oo ka mid ah isagana المؤمن uu alifay abulfatxi maxamed ibn maxamed ibn cali ibn hamaam alraaji. waxaa ka mid a kitaabkan ama waxaan ka wada adkaarta waxaa kitaabo ka alifay alimaam ibn qayim, kitaabka la yihahdo alwaabil sayib min alkalimi ayib. kitaabkaasi ma ahan sharaxa kitaabkan akrin doona haddii ila haraal ka dhigo. ero kale aada u tiro badan oo kuwa hore iyo kuwa dambe sida ibn xajar casqalaani, alimaam annawowi laabuddan an nadkur inaan sheegno waa qasab alimaam annawowi kitaabkiisa aladkaar oo qayim lixdankii. wuxuuna geeriyooday sanadku markuu ahaa cafan wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa 661 ayuu dhashay. culimadiisa aad bay u tiro badin, lakin waxaa ka mid ah ibn cabdidaa'im, waxaa kaloo ka mid ah alqasim alarbili, waxaa ka mid muslim ibnu callaan, waxaa ka mid a salax ibnu camr, iro kale aada u tiro badan. ardadiisu way fara badan yihiin, waana ardadiisu aimo kibaar ah oo runtii mid kale aan ka liidanin. waxaa ka mid a alxaafid aldahabi, waxaa ka mid a alxaafid ibnu kathiir. waxaa arday isla ahaayeen, marna ay isla ahaayeen arday iyo macalinkiisa alimaam alxaafid aljabal, waa alxaafid ibn cabdilhaadiya ka mid ah. waxaa ka mid ibnu rajab, waxaa ka mid ah ibnu qayim aljawzi raximahum allahu jamiican. culimmadu aad bay u ammaaneen, laakiin wakti hadda intaasi ayaan ku kaaftoomayna. sheekha raxmatullahi calayhi kitaabo badanna wuu alifay oo aada u tiro badan oo ah kitaabo dhinac walba markaa ka fiirisa. haddii caqiida waxbuu ka alifay weliba u badan kutubtiisa, hadday tahay fiqina sidoo kale iyo kitaabo kale aada u tiro badan. sheekha iyo taariikhdiisu intaasaan kaga kaaftoominaa. kitaabo badan laga alifay. qofkii rabo kitaabada laga alifay sheekha waxaa u tilmaamaya dhowr kutub, sida kitaabka alxaafid sakhaab uu qoray kitaabka la yihahdo fi daw ilaamic. waxaa ka mid a kitaabka la yihahdo cafan durul kamila iyo tadkirat lxufaad. kitaabada laga alifay weeyaan. dadka kitaabada ka alifay waxaa ka mid ah alxaafid ibnu kathiir, kitaabkiisa albidaaya wuxuu ka sheekeeyey sheekha taariikhdiisa. alcuquud duriya oo aham kitaab ah kitaab ah oo kitaabada laga qoray sheekha ka mid ah oo ibn cabdilhaadi uu qoray, iyo kitaabo kale aada u tiro badan. marka sheekha iyo tarjumadiisa intaasa uga baxayna. waxaana bilaabeynaa kitaabkeena annagoo ku bilaabayna ilaahay subxaanahu wa tacaala towfiiqdiisa iyo cownkiisa. sheekha raxmatullaahi calayhi waxa uu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi wasalaamu calaa cibaadihi aladiina istafaa. sheekh wuxuu ku bilaabay ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadiisa ayuu ku bilaabay. waxaana uu yihi alxamdu lilah. marka hore bismi llah ayuu yihi, magaca ilaahay ayuu ku bilaabay. magaca ilaahayna wax kasta lagu bilaabaahi waa shay muhiima weeyaan, sida looga dayanay kitaabkii allah jala wacalaa qur-aankiisa uu noo soo dejiyey. laakiin axaadiista tilmaamayso kulu amrin dii baalin laa yubda-u fiihi bismi illaahi
ama bismi illaahi araxmaani araxiim fahuwa aqطac, ama bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, ama riwaayadda kale bidikri illaahi. dhammaantood culimada badankood waxay duruqda ku yimid xadiidkaasi dhammaantood ay ku tilmaamaan inuu daciif yahay, ilaa culimmada qaar ka mid ah sida nawowi iyo ibnu salaax ay ku sheegaan lafdiga xamdalada ah inuu xasan yahay xadiidkiisa. laakiin si kasta ahaato waxaa idinku yiri xadiidkaasi waxaa weeyaan waa daciif. sidaa daraaddeed waa daciif jiddan weliba. sidaa daraaddeed waxaan leenahay waxaa weeyaan waxaan ka kaaftoomaynaa qur-aanka ilaahi jala wacalaa. sheekha markuu ilaahi subxaanahu watacaala magaciisa ku bilowday isagoo ilaahay cuskanayo, allana uu yahay midka araxmaan iyo alraxiim ah, raxmaan addunya iyo raxiim addunya waalaakhira. ilaahay jala wacalaa waxaa weeyaan midka isaga naxariista iska leh, gaarsiina naxariistiisa dadka kale oo dhan ama makhluuqaadkiisa. ama waxaad tirahdaa alraxmaan waa midka naxariista gaarka iska leh, alraxiimna naxariista khaaska ah ee mu'miniinta u naxariista. walow tafsiirkii hore uu ka fiican yahay kan dambe hadda aan ku sheegay. sheekha markaa raxmatullahi caleyh markuu intaa yidhi ilaah ayuu ku mahadiyey oo waxa uu yidhi alxamdu lilah. ilaahay subxaanahu watacaala in lagu mahadiyaana waa shay waajiba, laakiin ilaahay subxaanahu watacaala mahadintiisa oo ah in la yidhaahdo alxamdu lilah iyo wathanaau lilahi fii farq ayaa u dhexeeya, sida culimada ay tilmaameen. qofkii u baahan arrinkaasi faahfaahsan iyo alxamdu lilaahi oo ah ilaahay subxaanahu watacaala in laga waramo laguna mahad celiyo iyadoo jaceyl uu arrinkaasi uu ku jiro. ibnu qayim kitaabkiisa badaa'ic alfawaa'id ayuu ku sheegaa iyo farqi u dhexeeyo xamdalada ama ilaahay subxaanahu watacaala ammaantiisa. marka waxaan rajeynaya in kitaabkaasi dib loogu noqon doono. sidoo kale sheekh wuxuu yidhi alxamdu lilah, allah mahadoo dhan iska leh. kadib wuxuu yidhi wasalaamun calaa cibaadihi aladiina istafaa. meeshan sheekh wuxuu ku sheegay salaam, laakiin maanu sheegin salaad. sidaa daraaddeed culimada qaarkood waxay yidhaahdaan sida imaamu nawowi markuu sharxaya kitaabka saxiix muslimka waxa uu ku qabsaday imaam muslim inuu salaad sheegay uusan salaam sheegin. sidaa daraaddeed uu weliba yidhaahdo waa karaahiyo in midkood lasoo gaabsado lagu gaabsado. laakiin alimaam ibnu xajar xaafid ibnu xajar wuxuu sheegaa karaahiyo inay noqonayso qofka markuu dabeecad ka dhigto uu mar walbaba isaga dabeecaddiisu ay tahay labada midkood inuu ku gaabsado, waayo ilaahay subxaanahu watacaala labada waana amray. sidaa daraaddeed qofka waxaa uu mudan yahay inuu la yimaado nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu ku salinayo salaada iyo salaam labadaba inuu la imaado. marka salaada waxaa weeyaan sida saxda ah culimmadu qaar waxay ku tilmaamaan asalaata bimacnaa alraxma. waxaana ka mid ah imaamu tirmidi fii sunanihi sufyaan athawri ayuu kasoo guriyaa iyo culimo kale aada u tiro badan. laakiin imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala isagoo kitaabkiisa saxiixa kusoo saaray tacliiqan majzuuman tacliiqa majzuuman ah in abulcaali uu ku tilmaamay ilaahay subxaanahu watacaala markuu nabigiisa salaada uu ku tilmaamay ee tahay waa ammaan ilaahay subxaanahu watacaala ammaanayo. in ereyga asalaad oo ah marka nebiga sala allahu alayh wasalam lagu salinayo oo asalaatu cala annabi ay tahay. alimaam ibnu qayim kitaabkiisa badaa'ic alfawaa'id wuxuu ku sheegaa ereyga alraxma in lagu tilmaamo salaada ilaa iyo 3 weji ayuu ku sheegaa inay arrinkaasi sax ahayn. qofkii raban uu ku noqon karaa. waxaana ka mid ah 3daas weji mid ka mid waxaa weeyaan in ilaahay subxaanahu watacaala hal aayad ku sheegay salaada iyo naxariista. tusaaleaan qolada musiibo ku dhacday ee ilaah usoo laabtay ee yidhaahda inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun, ilaah wuxuu ku tilmaamay ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim wa raxma. kuwaasi dushooda rabbi jala wacalaa wuxuu leeyahay waxay ahaatay salawaatun. haddaa salawaatun ku macnaysa raxma oo min rabbihim ka timid, wa raxma halkay geenaysaa. sidaa daraaddeed aayaddaasi ayuu u daliishaday ibnu qaymu, waana booskeeda. iyo laba kale ayuu ku daraa in asalaat bimacnaa alraxma ay khalad tahay. nabiga sala allahu alayh wasalam asalaat bimacnaa markii xag rabbi ee ka timaado ay tahay athanaa ammaan oo ilaahay jala wacalaa nabigiisa ammaanayo. ama markay ka timaado makhluuqaadkana waa duco weeyaan. makhluuqaadka hadday malaag yihiin iyo hadday yihiinba ba-aadanaha iyo waxa la midka ah. sidaa daraaddeed inkasta uu ku macnay sufyaan athawri imaamu tirmidi uu ku sheegay saxiixiisa oo anaga sheegnay calaa cibaadihi aladiina istafaa. calaa cibaadihi culimmada qaar waxay ku sheegaan meeshan addoommadan ilaahay subxaanahu watacaala doortay. culimmadu qaar waxay yidhahdaan waxaa weeye ambiyada.
waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi allahu yastafi min almalaa'ikati rusula wa min annaas. waxay culimmada qaarkoodna ee sheegaan inay ummadda nabi maxamed sala allahu alay wasalam ee tahay ummadda nabi maxamed raacday oo rumaysay. ilaah waatuu leeyahy uma awrathna alkitaaba aladiina istafaynaa min cibaadina. marka ereyga istafaa doorta weeyaan. haddii ambiyada la yidhaahdo waana sida ay uga muuqatee waxaa weeyaan ilaahay ambiyadiisa ayuu doortay, wuxuuna u doortay risaaladiisa weeyaan. tafsiirkaasaana ila haboon, walcilmu cinda allah. intaa kadib sheekhu markuu intaa yidhi waxa uu bilaabay aayado qur'aan ah. qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayaqfir lakum dunuubakum waman yutic illaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima. aayaddan uu sheekha ku bilaabay ee suurat laxzaab ku jirta, rabbi jala wacalaa wuxuu la hadlayaa dadka mu'miniinta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala si dhaba u aamina raacay rumeeyey. ilahi wuxuu leeyay ittaqu llah, alla kaa baqda. taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala tafaasiir kala duwan ayaa lagu tilmaamaa. culimmada qaar waxay kusoo koobaan qofka ilaahay inuu ka cabsado macneed waxaa weeyaan inuu qofka uu sameeyo uu la yimaado alcamal bitaacati illaah isagoo weliba calaa nuurin min allahi ah, isagoo weliba rajaaan thawaab illah subxaanahu wa tacaala. qofka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala camal daacada ula yimaado markuu sameyna iskiisa aan u sameyna ee nuur min allahi xaggeeda daliil uu wato wuxuu sameynayo, isla markaasna rajo ka qaba ilaahay subxaanahu wa tacaala thawaabkiisa iyo ajarkiisa. waxay kaloo ku lamaanayeen qofka inuu kaga tago macasida ilaahay subxaanahu wa tacaala calaa nuurin min allah isagoo weliba khiifatan min cadaab illah, isagoo cadaabka ilahay ka baqanaya. culamada qaar waxay ku sheegaan taqwa allahi subxaanahu wa tacaala waxuu ilaahay amrayna inuu la yimaado intuu karo, wuxuu ilaahay ka reeba dhammaanna inuu isaga tago. sidaa daraaddeed rabbi jala wacala wuxuu la hadlay dadka mu'miniinta ittaqu llah ayuu yihi, ilaahay ka cabso. marka alla ka cabsigu labadaba way noqotaa, ficilna wuu noqdaa, qowlina wuu noqdaa. aw bilaxraa waxaan dhihi karnaa waxaa weeyaan labadaba oo camalka waxaan ka wadaa qowlka iyo ficilku markuu qofka la yimaado ayuu rabbi jala wacala alla ka cabsaday. waxa uu alla necab yahan uu ka fogaado. ilahi markuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah, ilahi wuxuu yihi waquluu qowla sadiida, waquluu waxaad tiraahdaan qowlan orah ama hadal sadiidan ee cadlan fima baynakum, mid cadaalad ah oo dhexdiina waa lagu macneeyaa. culamada qaar waxay dhahaan qowlan sadiidan waxaa weeyaan kelimada laa ilaaha ila allah oo ah kelimatu tawxiid. culamada qaarna waxay yidhahdeen may, waquluu qowlan sadiidan waxaa weeyaan labadaba, wa ficlan labadaba ay noqon kartaa. qofka inuu kelimada tawxiidka waa midda ugu qaalisan, kelimad lagu dhawaaqo oo toosan haboon waa iyada. qofkan inuu cadaalad ku dadaalno waa lama huraan, waayo kelimada tawxiidka hadduu qofka qabsado uu ku dhawaaqo cadaaladana automatic waxaa laga rabaa inuu u hogaansamo wixii cadaalad ah. sidaa daraaddeed culamada qaarna waxay dhahaan kheerka oo dhan ayaa ah wax kastoo afka lagaga dhawaaqo oo kheyr ayaa ah ereyga qowlan sadiidan. sidaa daraaddeed aayadda waxay tilmaamaysaa inta hore inaan ilaalino carabkeena ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu raali ka yahay mooyaane inta kale inaan ka fogaano weeyaan. ilaahay jala wacalaa markuu intaa yidhi wuxuu tilmaamay markii qofka laga helo iimaan dhaba, allana uu ka cabsado, afkiina wax kheyr oo ka soo baxo, automatic ficilkii ama jawaarixdii waxay sameynaa waxay noqonayaan wax wanaagsan. ilahi wuxuu leeyay yuslix lakum acmaalakum wayaqfir lakum dunuubakum waman yutic illaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima. rabbi jala wacalaa wuxuu leeyahay markaa alle si dhaba u rumaysaan kana cabsataan ilaahay subxaanahu wa tacaalana cadaaladiis ku dhawaaqdaan ama kelimatu tawxiid a ku dhawaaqdaan, ilahay wuxuu hagaajinaya acmaashiina, wuxuuna dhaafayaa dunuubtiina. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sameynaya yaqfir lakum dunuubakum, qofkii alle rasuulkiisa adeecana ilahay wuxuu siinaya liibaan weyn. aayadda ku xigta sheekha uu soo qaato waxaa weeyaan ilayhi yascadu alkalimu ayib, ilayhi ee ila allahi yascadu ayay u kortaa alkalimu ayib, kelimada wanaagsan. alkalimu ayib culimmadu qaar waxay ku sheegaan waxaa weeyaan sidaa daatin yiri kelimatu tawxiid. culimmada qaarna waxyaabo kale ku sheegaan kelimadan oo ah ilayhi yascadu alkalimu ayib oo aayadda qur-aanka ay ku dhex jirto fii suurati almalaa'ika ama suurati fatir suuradda la yihahdo. waxay kutusinaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka sareeyo addoommadiisa iyo makhluuqaadka oo dhan, ilaahayna uu jiro fowqa 7 samaawaat, sida ilaahay jala wacala uu ku tilmaamay naftiisaba wahuwa alkabiiru almutacaal ama sabix isma rabbika alaclaa.
iyo aayadaadka kale aadka u tiro badan inuu carshigiisa ka sare ay noo imaan doonto. sidaa daraaddeed rabbi jala wacala isaga xaggiisa ayaa kelimad kasta oo wanaagsan, meeshaan u fiirso, kelimad kasta lama dhihin alkalim aطayib, shardiga waxaa weyaan kelimaddu inay fiican tahay weyaan. kelimadda fiicanna waa wuxuu ilaahay raali ka yahay jala wacala. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaloo tilmaamay aayadan in xaggiisana loogu qaado acmaasha oo dhan. ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahy ilaa yascadu lkalimu ayib, fiiriya, ilayhi ee ila allahi yascadu lkalimu ayib, kelimadda wanaagsan xag ilaahay ayay aadaa. acmaashana wanaagsan camalkan waa laabudda inuu yahay camalu saalix, iyaduna waxaa weyan kelimada kalimatu ayib ayay kor u qaadaa weeyaan. sidaa daraaddeed rabbi jala wacala fowqa 7 samaawaat ayuu jira. camalkuna saalix ma noqdo ikhwaanii wa akhwaatii fi llaahi ilaa in laga helo 2 shay ama 3 shay. qofka marka hore waa inuu mu'min yahay, 2 waa in uu qofka waxa uu sameynayo alla dartii u sameeyo oo ah ikhlaas. midda 3aadna waxaa weeyaan camalka aad samaynaysid waa inaa oga dayataa nabigeena calayhi salaatu wasalaam, waa inaa ka haysataa ogolaasho xaggiisa. sheekh raxmatullahi caleyh wuxuu kaloo yidhi qaala tacaala fadkuruunii adkurkum. aayaddan fii suurati albaqara ku jirto waxaa weeyaan macnaheeda ixusa oo daacadeeda iyo alla kacabsi igu xusa, ana dembi dhaafa idinku xusaya. culamada qaar baa ku macneeyey, qaar kale waxay ku sheegeen waxaa weyaan xilliga cariiriga a ku jirtid ixasuuso oo ixus, xilliga barwaaqada a ku jirtid xilliga cariiriga ayaan ku xasuusanayaa. qolob waxbay ku macneeyeen. qaar waxay yidhahdeen xilliga barwaaqada a ku jirtid haddaad rabbi jala wacala xustid adna xilliga dhibaatada ilahay ku xusaya, iyo kuwo kale la mid ah. haddii alle dad adoo ku dhex jira a xustid, ilaahay subxaanahu wa tacaala dad ka khayr badan dadka adi a ku xustid ayuu kugu xusayaa. haddaa alla subxaanahu wa tacaala aada duca aa weydiisatid, xuskaaga uu yahay alle inaad barisidoo duca gacmaha kor ugu taagtid, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kugu xusaya inuu ku ajiibo. ilaahay subxaanahu wa tacaala daa'iman wa abadan inuu isagana xuso ayaa ah midda ugu weyn, waana noo imaan doontaa aayaadka macnaha ah wala dikrullaahi akbar, waxay culimmada qaarkood ku macneeyeen. sheekh wuxuu kaloo soo qaata aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu aayadda fadkuruunii adkurkum. aayaddan fii suurati alaxzaab ku jirto oo waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala carabka iyo jawaarixda alla ka xusa, xaalad kasta oo ku jirtaan ilahayna isagana waa idin xusayaa. qofkan waxaa weeyaan aljazaau min jinsi alcamal, waxuu sameeyo waxa uu helayaa waxa uu sameeyo wax la mid ah. sidaa daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala aayado badan ayuu ku tilmaamay xuskiisa in la badiyo, sida aayadda uu sheekha soo qaata aayadda kale ilaahay jala wacala uu leeyahy wadhaakiriina allaha kathiira wadhaakiraat. aayaddan waa garanaysaano ilaahay sifaat tiro badan ayuu tilmaamay oo mu'miniintii muslimiintii ilaa uu marka dambe yiraahdo ragga alla xuska badan leh iyo dumarka alla xuska badan leh ilaah wuxuu u diyaariyay lahum makfiratan wa ajran cadiima. halkan culimmadu waxay tilmaamaan arrin aada u muhiimsan oo ah xuska ilaahay oo la badiyaahi, qofkii badiyaahi waxay daliil u tahay iimaankiisa. culimmada dhahan qofka daa'iman wa abadan afka ku hayo xus ilaahay waxay daliil u tahay qofkaasi iimaankiisa. cagsigana waxaa la yidhaahdaa alla xuska qofkii inuu alla xusa ay ku yar tahay ama alla xuskiisu ay aada u yar tahay waxay daliil u tahay nifaaqiisa yidhahdaan. waayo ilaahay waxaa xuso oo xuskiisa badiya dadka mu'miniinta ah, dadka xuska ilaahayna yareeyana waa sifaat ama calaamad ka mid a calaamadaha munaafiqiinta. ilaah waatuu leeyahy jala wacala isagoo munaafiqiinta sifooyinka uu ku tilmaamaya ay ka mid tahay walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila. marka su-aal isweydiin mudan waxay tahay dhammaanteen walaalayaal, anoo nafteeda ka bilaabaya, qolada alla xuska ku yar yahay haddii lagu tilmaamay sifo ka mid a sifaadka munaafiqiinta, qolada alla xusin maxaan ku tilmaanaa marka? taasi waxaan u malaynaya su-aashaas jawaabteedu idinka iyo annaga dhammaan way noo taalaa. nas'alu llaha asalaama walcaafiya. qolada alla xuseyso maxaa lagu gartaa? culamo waaweynaa la weydiiyey sida ibnu salaax iyo rag kale. dadka alla xusey waxaa lagu gartaa waa dadka daa'imo dikriga ilaahay jala wacala xaalad walba ay ku jiraan, sida noo imaan doonto. xaalad walba bimacnaa waxaan u dan leeyahay aayadda soo socotaa sheegi doonto, kolkay taagan yihiin ama ay fadhiyaan ama ay jiifaan, ama haddii ay socdaan iyo hadday safar yihiin iyo hadday muqiim yihiin,
hadday xanuunsan yihiin iyo haddii ay caafimaad qabaan, hadday gaajaysan yihiin iyo hadday dhargan yihiin, intaba allay xasuustaan oo xusaan. sidaa daraaddeed sheekha aayadda kale uu soo qaato waxa weeyaan, waxa uu yidhi aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuuda wa calaa junuubihim. aayaddan ilaahay jala wacala wuxuu ku tilmaamay aladiina, qoladan la sifeynayo, sifadan lagu tilmaamayo waa qolo la yidhahdo ulul albaab, qolada u saaxiibka caqliga, garaadka iyo garashada ilaahay uu siiyey. garaadka iyo garashada cid kastaa sheegato hadda, dad baa la yidhaahdaa ahlulxal, iyaga weeyaan aan u qalmin ama ahayn, laakiin ilaahay jala wacala agtiisa dadka ahlulxalla ah ama caqliga u saaxiibka ah ama garaadka leh, ilaah wuxuu ku tilmaamay waxaa weeyaan aladiina yadkuruuna allah, waa qolada alla xusa qiyaaman, xaalad kasto ay iyagu taagan yihiin, ama wa qucuudan, xaalad kasto ay fadhiyaanba, ama wa calaa junuubihim, xaalad kasto ay ku jiraan ama ay jiifaan. sidaa daraaddeed kulay ku tahay xaaladahaasi alla xuskooda marnaba kalama go-o. sidaa daraaddeed waa muhiim jiddan inaan la imaano ilaahi subxaanahu wa tacaala xuskiisa. ilaahna waatuu leeya udkuru llaha dikran kathiira daa'iman wa abadan. waxaana laga rabaa ilaah inaan xusno, ilaah xuskiisa in xaalad kastana laga rabo. waxaa kaloo u daliila sheekha aayaddu soo qaata ee ku xigta, ilaah wuxuu leeyahay idaa laqiitum fi'atan fahbutuu. idaa laqiitum haddaad la kulantaan fi'atan kooxdani waa cadow. cadowga wuxuu noqon karaa laba qeybood, cadow kuu muuqda iyo midaan muuqanba. cadow kuu muuqda waa macruuf, gaalo ha noqdaan ama kuwo kale iyo muslimiin sheeganayo cadow ha noqdaan, kuwaas way muuqdaan, waana jihaadka aayadda sida ku timid. waxaa kaloo aayadda laftigeeda ay kutusinaysaa cadow aan la arkaynaa jiro, shayaadiinta iyo jinniga kuwooda xunxun ee faasiqiinta ah, iyaguna waxaa weeyaan waa cadow. in lala kulmartaro qofka inuu jeclaysto ma ahan oo isaga u yeyeerto, laakiin hadduu la kulmo waxaa rabaa inaad sugnaato, jilbaha dhulka dhigatid. taana waxay ku imaan kartaa xaaladaas xataa adoo ku jiro cadow la kulmay oo xaalad adag ee tahay, fadkurullah, alla xus rabbi jala wacala, xus oo waxaa la timaadaa udkuru llaha dikran kathiiran, xus badan ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad xasuusato xustid waa laga rabaa. waana sababaha lagu liibaano ay guushu ku timaado, guusha hadday tahay mid macnawi ama haddii ay tahay mid xisi ah, intaba weyaan. sheekh wuxuu soo qaatay haddana aayad kale oo uu yidhi faidaa qadaytum manaasikakum, markaad dhammaysaan manaasigta xajka ah, howliya xajka, fadkuru llaha alla xusa, ka dikrikum aabaa'akum, sida aabbayaalkiin aada u sheegtaan u xusa, aw amase ashadda dikraa, aabbayaasha aad sheegtaan ka daran sidaa u sheegtaan alla u sheega. macnaheedu waxaa weeyaan dadkii hore ee gaalada iyo qolooyinka hore markay xilliyada qaarkood isku yimaadaan sida xajka, waa ogtiin iyagoo qaawanay dawaafi jireen, waxay rabaan ay samayn jireen. waxyaabaha ay la soo banbixi jireen waxaa ka mid ah howlahoodu markay dhammaystaan faan inay qolo walbaba aabbayaashood iyo awowayaashood waxyaabihii ay ahaan jireen inay sheegaan ay ku faanaan, iyagoo aada ula weyneed. marka qolo walba waxa ay dhaqankoodu ay yaqaaniin ayaa waxa lagu tusaaleynayaa, laakiin macnaheedu ma aan aabbayaasha in lagu faano hadda. sidaa daraaddeed ilaahay xuskiisu halkan waxaa la yidhi xajkaa la dhamay. xaj waa ogtihiin, xajku qofkii xajiya dembigiisu ilaahay dhaafaa hadduu aanu la imaanin, siduu nabiga tilmaamay rafat iyo fusuuq. nabigu waatuu leeyahy calayhi salaatu wassalaam, man xaja falam yarfud walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowmi waladathu ummuh. nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu tilmaamay qofkii xajiyaahi ee aan rafath la imaanin, hoolo ku saabsan rag iyo dumar wixii dhex mara, isla markaana aan fisqi wax la mida la imaanin, nabiga wuxuu tilmaamay qofkaasi dunuubtiisa marka loo eego xale dhaliu noqonaya sida hooyadii markay dhashoo kale. xajka noocaas ah qofku markuu dhammaysto ayaa haddana rabbi jala wacala wuxuu leeyahay alla xus, sida aabbayaashiin u xustaan in ka badan alla u xusa. sidaa daraaddeed waxaa arkaysaa cibaadada markaa eegtid, inta badan waxaa arkaysaa cibaadada marka la dhameeyo alxusa ka dambeeyo. waa garanaysaan salaada marka laga baxo
waxa ugu horeeya qofka isagoo salaad ka baxay laga rabaa inuu yidhaahdo oo nabigana bara waxaa weeyaan istakfurlays inuu la yimaado oo 3 mar uu yidhaahdo istakfirullah istakfirullah istakfir kadibna adkaarta kale uu la yimaado allahuma anta asalaam minka asalaam ama allahuma acinna calaa dikrika ay kuwa kale aad ku tiro badan haddaba salaad buu ka baxay la soco sidoo kale weeyaan xajka waa kana ilaahay wuxuu leeyahay fa idaa qadaytum manaasikakum fadkurullah sidoo kale soonku ilaahay soonka aayaadka soonka markuu dhameeyo wuxuu yidhi markuu tilmaamayo walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum sidaa daraaddeed qofka cibaado isoo ku jira iyo markuu cibaadada dhammeeyaba waxaa la rabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala daa'iman wa abadan inuu xuso aayaadka uu soo qaata sheekha waxaa ka mid ah aayadda ah rijaal laa tuliihim tijaaratun walaa bayc fiiri aayaddani waxaa ka horreysa aayadda eed fii buyuutin adina allah an turfaca wayudkara fiiha smuh ilaa uu rabbi jala wacala yidhaahdo rijaalun laa tuliihim tijaaratun walaa bayc rag ayaa masaajidadaasi ilaahay ku xusa raggaasi ereyga rijaal aa la yidhi macnaheedu uu ka qiimo badan yahay marka la tilmaamo wasfiga dakarnimo lagu tilmaamo waxaa ka muhiimsan rijaalka qoladan rijaalka ilaahay ku tilmaamay kama mashquuliyo dikriga ilaahay beec iyo shira wax iibsasho iyo wax gadasho kama mashquuliyo labadan waxaa loo tilmaamay waxaa weeyaan waxyaabaha ugu badan lagu mashquuliya ka mid tahay iyo labada soo socoto marka la eegaba marka qofka ragga ah ee la tilmaamay waa dadka aanan dikriga ilaahay kaga mashquulin iibsasho iyo ganacsi iyo adduunyo weeyaan aayadda kale uu sheekha soo qaatay waxaa weeyaan aayadda ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illaah waman yafcal dalika fa ulaa'ika hum lkhaasiruun rabbi jala wacalaa wuxuu yidhi dadka iimaanka dhabta a laga helayo yaynan caruurtiina iyo hantidiinu idinka mashquulinin ilaahay xuskiisa ilaahay xuskiisu waxaa weeyaan qofku inuu kaga mashquulaa adduunyadiisa oo ah maalka oo halkan ilaahay ku tilmaamay ama owlaadiisu labadani keliya ma ah waxyaabaha qofka mashquuliya ee laga yaabaa ilaahay xuskiisa uu kaga mashquulo waxyaabaha ilaahay xuskiisa aadanaa uu kaga mashquulo waa badnaan karaan laakiin labadan waxaa loo tilmaamaa waa labada ugu badan ay yidhaahdaan beeca iyo iibshada marka lagu daro saddexdaasi sidaa daraaddeed qofka muslimka ah waxaa la rabaa isagoo adduunyo ku dhex jiro inuu ilaahay xuso haddii uu gurigiis joogo inuu ilaahay xuso yani gurigiis waxaan u dan leeyahay carruurtiisa hadduu dhex joogo inuu ilaahay xuskiisa uusan carruurtaasi aysan sabab u noqonin in ay carruurtaasi ku hilmaansiyaan dikri ilaahay carruurtu waa nicmo nicmadan ilaaha looga mahdiyaa laakiin nicmada haddee niqmo kugu noqoto waa dhibaato sidaa daraaddeed qofka mu'minka waxaa laga rabaa inuu ilaahay xuso xaalad kasta aad ku sugan tahay ama adduunyadaada ku dhex jir ama reerkaaga ku dhex jir ilaahay xuskiisa waa inaad badisaa qofka mu'minka calaamaha lagu yaqaan isagoo alla xuskiisa badinaya haddana wuu baqanaya beenamaa dadka kale isagoo alla aan xusaynin ayuu haddana aamin yahay oo waxba ka baqanaynin walcaksu bilcagsi saxiix weeyaan sidaa daraaddeed ilaahay jala wacala wuxuu yihi waman yafcal dalika waxaa weeyaan qofkii dikriga ilaahay meeshuu ku mashquuli lahaa hadduu kaga mashquulo hanti oo adduunyo ah iyo owlaadii iyo reerihii ilaahay wuxuu ku tilmaamay fa ulaa'ika hum lkhaasiruun qoladaasi waa qolo khasaaray khasaaradu ilaahay qoladu khasaaro ku tilmaamana wax ka dambeeya ma laha nas'alu laha salaama dikriga ilaahay hadday salaad noqoto hadday cibaadaad kale noqoto dikriga mudlaqa oo dhan waa soo gelayaan midka gaarka waa soo gelaya waxaasoo dhan weeyaan ama jihaad ha aado ama salaad ha aado ama soon ha aado ama sadaqa ha aado ama xaj wax kastoo cibaada waa dikri ilaahi subxaanahu wa tacaala sheekha aayadda kale uu soo qaato waxaa weeyaan waxa uu yihi qowluhu tacaala wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifa wadkur xus rabbaka rabbiga fii nafsika ku xus tadarucan adigoo isbihaanbihinayo ama daa'imayo oo aadan kala goynaynin wakhiifatan adigoo ka cabsanayo cadaabka ilaahay jala wacala oo haddana ah waduuna aljahri ama adigoo ilaahay subxaanahu wa tacala markaa xusiis hoos u dhigaya xuska ilaahay iyo waduuna aljahri min alqowli codkoo kor loo qaadaa mid ka hooseeyo allo adoo ku xuseeyo si asalkan waxaa weeyaan alla xusku asalkiisu waa in hoos loo dhigo weeyaan sidaa daraaddeed qofku waxaa rabaa inuu ilaah xuso bilguduwi wal-aasaal gelinka hore iyo gelinka dambaba marka ilaahay inaan xusno weeyaan nafteena ku xusno si sira inaan ku xusno asalku waa sidaasi
laakiin meelaha ku soo arooray xuska ilaahay in kor loo qaado sida xajki wax la midka ahna waa la samayn karaa. wa ilaahuna cashirka halkaana maanta inoo jooga insha allah. fasliga soo socda ayaan ka bilaabi doonaa ugu horeeya fadlu dikri. waxaan asiibnay waa ilaahay xaggiisa, waxaan qaladnayna waa anigii nafteyda. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.